Assalaamu calaykum saaxiibayaal ku soo dhawaada mowduuceena maanta haddii aad ku cusub tahay kanaalka fadlan subscribe noo saar kuna soo biir kana mid noqo asxaabta ku xidhan janalka hoyga bulshada. Waan kaa codsanayaa saaxiib inaad subscribe noo saarto sidoo kalena mowduuca haddaad ka hesho like dhufato. Dhawaano dagaalla aan loo aaba yeelin isku qaada balse kii Ronow kaynta Ward ayaa ka dhacda. Saaxiib halkan waxaa ku hirdamaya libaaxyo iyo sidoo kale muroodiyaal. Walibana waxaa dhufayska ka galayaan goobtooda iyaga u gaarka. Goobtan la iskuma naxayo. Waa subax hore. Goobta waxaa saaka u sandheer libaaxyo xayn ah oo jooga meeshan laakiin xalay ayay dhufayska ka xidheen. Iyagana waxaa kaynta ku nool muroodiyaal inkastoo iyaguna aynan heshiis ahayn waa libaaxyada iyo muroodiyade waxayna rabaan inay saaka weerar qaadaan oo ay ugaadhsi tagaan. Balse muroodiga taas kama yeelayo oo waayo wuxuu isku raacayaa wadar guud. Waa macquul mid ka firxaday inay gacanta ku dhigaan kadibna ay isku jabiyaan. Macquulse maaha in ay aayar oo dhalatay markiiba ay haragga kala baxaan oo ay qabtaan. Haddaba daawade koox xayn dugaag ah ayaa markay arkeen libaaxyada kaynta ku soo dhex jubaaxaya ayay mar qura waxay damceen inay guud ahaantood goobtana ay iskaga baxsadaan maadaama libaaxyadu aanan u aaba yeelin muroodiyaasha iyo xayawaanka kale ee yaryar ee goobta ku nool. iyagoo yaacaya ay isjireen muroodiyaashii kaynta dhinaceeda iskaga cunayay cawska maxaase dhacay jabaqda goobta ayaa cirka isku shareertay muroodiyaashuna waxay ka huleeleen gebi ahaanba goobta khaas ahaan webiga dhinaciisa. libaax kacsan oo diyaar u ah inuu saaka qabto mid uun ayaa meel dheer isha ku qabtay inuu qabto muroodiga balse muroodigii waxay xooga saareen inay iska caabin ku sameeyaan laakiin libaaxii ayaa isagu dhufays galay dib ayuuna u joogsaday wuxuuna sheekiyey in isaga laftigiisa wax la yeelo. raxan libaaxyaha ayaa soo orday xaggaas iyo muroodiga ayayna u soo yaaceen. haddaba muroodi khaasa oo talaxuma ka timi dhinaciisa ayaa si haleel ah uga hadhay raxantii saaxiibadii balse maxaa ku dhacay cajiib. mid ayaa la qabtay oo waxaa la rabay in xoog wixii lahayaba kan la iskugu geeyo goobtana waxaa soo gaadhay raxan libaaxyo ah oo u badan kuwa gaajaysan oo saaka subax horeba u soo kacay sida ay muroodi ay u qaban lahaayeen goobtii ayayna isku jabiyeen. an muroodiya ayaa markay maqleen daryanka saaxiibkood oo dhulka lala dhacayo xayaal gacanta ay ku dhigeen libaaxyo ah iyaguna go'aansadeen inay goobta ka sii baxsadaan iyagoo wadar ah goobtoodii ayayna tageen ka shaki qaba inay ka daba yimaadaan balse ma oga in saaxiibkood durbadiibasba haragga lagala baxay. goobtii waxay mar qura noqotay goob lagu kala baxsado oo qoladii libaaxyadu ahaydna ay iska hilibaystaan maadaama ay heleen muroodi saaxiibadii ka baxsadeen. intaas ayaan ku soo gabagabaynaya xalqadeennii koowaad ee ugaarsiga sida halista isu ugaarsada xayawaanada durjoogta ah. intaan ku kulmi doono xalqadda labaad la socod wanaagsan insha Allah xalqadda labaad.